السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورس دوادا عاصم Inspiration Academy قبل برta xisaabaadka gaar ahaan Microsoft Excel. Maanta waxaan qaadan doonaa cashar muhiim ah. Waxaan baran doonaa feature la yiraahdo Flash Fill. Flash Fill wax kale ma ahan, waa hawl fududeeye. Insha Allah waxaan tusi doonaa 5 example. Kadibna waxaan sidoo kale in la wadaagi doonaa limitationka. Insha Allah example-ka koobaad waxaan ku baran doonaa get the full name initials. Hadda meeshan full name inoogu qorra waxa inoogu qoran product code ayaa inoogu qoran. So marka insha Allah waxaan rabnaa inaan halkan initial ku qorno ama saddex xaraf ee bilowga ah ee dashta dhinaca bidixda ka xigta ayaan rabnaa in halkan ku tixino. Inta badan waxay sameeyaan waa ay qoraan CIA halkan imaadaan FIA sidoo kale halkan imaadaan ay ku qoraan GIA halkaasna u qoraan. Marka hadduu faylkaadu dheer yahay oo ilaa ay 1000 row ama 2000 row data ka kooban tahay aad ayuu adagtay inaad sameeydo mid ilaa mid. waxaan sameyn karnaa flash fill isticmaali karnaa. waxaan qorinaa xaraf ugu horeeya ama saddexda initial ugu horeeyda ama pattern-ka aan doonay inaan raacno ayaan qoraynaa. markaan qorno kan labada imaahayna waxaan dhigi karnaa sidoo kale qorinaa FIA soo jeedin markaan F ta bilaabo waxuu fahmaya ama u maleynaya in aad koobiyeynayso saddex xaraf ee ugu horeeyda column-ka product ay ku qoran tahay waana waxa aan doonayno waa sax. haddii aan yiraahdo tab soo jeedin automatically wax walba dhameystiran yihiin. halkaas aan u gudbina example koobaad. example-ka labaad datadan ama date-kan taariikhdan ayaa waxaan ka saari doonaa ama aan ka jari doonaa sanadka kaliya 2000 2001 2002 2003 sanadkaas aan halkan nagala doonayna ku qorno oo aan ka jarno column kala gooni aan ku qorno. soo marka waa isticmaali karnaa 2000 aan qoranaa. marka 2000 qorno hadda mid labaad qori mayno. waxaan sameeynaa marka another way ama way kale oo aad feature-kan flash fill ku heli karto ama aad sameey karto ay jiraan waana shortcut. waxaa dhigi kartaa marka control E automatically uu sameynaya asiga ayaa buuxinaya. soo marka soo jeedin wax walba oo dhameystiray. hadda kan ugu hooseeya waa 2004 kan labaad waa 2001 2002 2003 marka wax walba waa sax. example-ka saddexaad aan u gudbaynaa. example-ka saddexaad waxa waaye magacyadan ayaan rabnaa inaan magaca koobaadna halkan ku qorno magaca labaadna halkan ku qorno. halkan imaahayna Muhammad. marka Muhammad qorto waxaan isticmaalaynaa markaan halkan ay ku diyaarsan flash fill kan sidoo kale hadana tirada kan ku dhufan halkan ka doorano soo jeedin isla shaqadii uu qabtaa saana u sameey kartaa. magaca labaad sidoo kale waxa waaye Kareem. sidoo kale waxaad tagi kartaa tabkan datada halkan waa ku jira sidoo kale flash fill dhigi kartaa soo jeedin Xafsa Cabduqaadir magacyadu kala duwan yihiin. example-ka afraad ama aan ku sameey doono wuxuu yahay emails inaan email sameyno. tusaale ahaan shirkadda ayaan shaqaalada waxaan doonaynaa inaan email u sameyno. marka qof kasta inaan email gooniya ama wax ka duwan sameyno waa waqtigan lumaya. soo marka halkan imaahayna waxaan ku qoraynaa magacyada ama file magacyada nagu diyaarsan soo qaadanaynaa halkan aan keenina. soo jeedo waxaan ka dhigaynaa labada xaraf ee ugu horeeyda magaca koobaad dhibic magaca labaad oo dhameystiran kadibna emailka shirkadda ayaan ku qoraynaa. waxaan sameynaa tusaale mo dash Kareem asmischools.com marka waa email linkiga ka saar remove the link dheh. hadda soo jeeda marka kaas waa sameynay. control E waa isticmaali kartaa halkan labaad imaaw control E isticmaal soo jeedin dhamaantood emailada u sameeydo waqti dhexe ma isa qaadan. laakiin haddaad mid u sameey lahayd qof kasta ugu dhigay email noocaan iga dhig qaabkan iga dhig waa ku wareeraysaa. soo marka automatically halkaasna ugu sameey kartaa daqiiqada sakanay kugu qaadanaysa inaad sameeydo. marka waxaan filaynaa fahantay. sidoo kale example-ka shanaad ee halkan ku jira magaca koobaad ayaa halkaan ugu qoran. tusaale form ayaa u dirtay in la buuxiyo dadku inay soo buuxshaan ama arday ama dad shaqaala ama teamkaada ayaa waxa u dirtay formka marka laba column ayuu leeyahay. midda koowaad waxaa dalbatay magaca koobaad ku qoro qaybta labaadna magaca labaad. soo marka qof walba sida uu qoro
daatadaada marka saan u helaysaa marka magaca koowaad oo hal koloma magaca labaad hal koloma marka waxaad doonaysaa magacyada inaad isku darto hal magac ka dhigto hal koloma ka dhigto full name kooda hesho wax kala sameeysid flash fill isticmaali kartaa Muhammad Karim أصدق كرتا برجسان ترادو أدقاب كدونا استعمال إنه فلاش أو استعمال كرتو هذا سوي جديد دان هالكان جي فلارته موس كان دول جيو علامة بلاصة إنه غنيسا هذا لفتي هاي أي شيريسا إلى هوس الجنيسا مركا هوس جسوي جديد هل مقعي يكوبي لكن هل كان أوبشن كلا يوسين يسوي جديد أوت في الأوبشنز كأيه أوسين يا كوبي سيلس هذا وحاول سميه كوب سيل كأيسو كوبي سيدو كلا حسمي كرا إن فورمات أونلاين كوبي كرا سيدو كلا without format إن سميه كرا halka hoos u jeedin flash fill ayaa ku qoran dan kale ku siiyo soo jeedin wax walba waa diyaarsiin kaas koobaad uu ka tusaale qaadanaya marka kan labaad sidoo kale ayuu sameeynaya marka xafayna fahamtay qaabkan aad isticmaali karto flash fill shantii example-na qaabkaas ku sameeynay marka halka waxaan sidoo kale waxaan soo dhigay limitation ama waxyaabo qaar uu qaban karin ayaa jira flash fill-ka waxa kamid ah ama cilada uu leeyahay ama limit uu leeyahay jira waxa kamid ah dynamic ma aha resultiga saahan hadda qaybtan magacyada hadii aan magac saddexaad ku qorno aan dhahno kooxahan Hamdi Ali ma qori halkan ku arkaysa Hamdi Ali automatic ma aha dynamic ma aha marka limitation kaas waa leeyahay sidoo kale waxa kamid ah flash fill may not always return the result waxa jira waxyaabo uusan soo qaban karin isla markii oo aadan ku sameey karin tusaale ahaan date-ka kaleeto dad meesha imaato aan tusaale wax yar bisha soo jeedin 0207 waxay u baahan tahay inaad sameydo waxyaabo kale oo caawinaya si uu u aqoonsado ama uu automatically soo qabsado marka limitation kaasna waa leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay horizontally ma ahan waa vertical oo kaliya تاني 10 كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.